ujeedada aanu qabanay press release-keena amase shirkeena jaraa'id ayaa ah kow inaan hortu helno xaquuq dastuuri ah wuxuuna ku saabsan yahay inaan xaquuqdaas dastuuriga ay ku saabsan yahay shirkeena jaraa'id maadaama dalka Soomaaliya oo gelayo xilli doorasho ay ka qabsoomayso dabayaaqada sanadkan maadaama ay ku nool yihiin dalka Soomaaliya dad tiro badan ee naafa ah oo u baahan xaquuqda ay ku leeyihiin dalka Soomaaliyeed waxaa ka tashiyo iyo wada hadallo aan dhexdeena yeelanay ayaan go'aansanay inaan gudbino fariintaas oo aan u dirayno ku socota madasha wada tashiga qaranka ee uu hogaaminayo madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ra'iisul wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka gudoomiyaha Jamhuuriyadda Baarlamaanka Soomaaliya madaxweynayaasha maamul goboleedyada dalka jira ayaan rabnaa inaan fartiin u dirno iyo dhammaan bulshada Soomaaliyeed gaar ahaan beesha caalamkaba Soomaaliya markii la qiimeynayo waxa la yiraahdaa waa 12 milyan naafa ahaana bulshadu waxay ka yihiin tirakoobyo la sameeyay boqol oo kala duwan 15% ayaa la yiraahdaa naafa ka ah Soomaaliya runtii ma garan kartiin cadadka inta la ego ballaaran 12 milyan haddii la yiraahdo 15% qiyaasta ku soo baxaysa waa milyan iyo 800 oo maarta ii sheeg dadka naafada ah wax yar ma ahan golaha naafada qaranka Soomaaliyeed wuxuu codsanayaa inay helaan matalaad dhinaca siyaasadda ku jaan go'an sida guud dalka ka yihiin sida naafada kale adduunka inay si codsi ah inay xaqeena ka helaan dhammaan golayaasha kala duwan ee dawladda sida aqalka sare sida aqalka hoose golaha xukuumadda dhammaan hay'adaha kala duwan ee dawladda inay helaan xuquuqda siyaasadeed ee naafada Soomaaliyeed fududeeyaan gelitaanka xukuumaha qaybaha kala duwan sida caafimaadka waxbarashada dhismooyinka kala duwan in laga hirgeliyo dhismooyin ay kori karaan dadka naafada sida inay wajirka la mari karaan hadii meel caafimaad tahay iskuul ay tahay meesha wax meel baxrasho ay tahay iskuul ay tahay in loo sameeyo meel wajirka dadka ay la mari karaan laakiin day tahay jaranjaro mise biyoonooyin is saaran qofkan muu fududeenayo inuu wajirka la koro inaan birooyinka la korno oo dadka biraha ku booda biraha ay la boodaan waxa macquul ah inaan dhinac caafimaad xun naga soo gaaro halkaas ama dhaawac mise dhinac kale aan kala kulano fuquuqa ayaa haraya maxaa yeelay wadanka meesha sharciga looga sameeyo hadaa joogto haddii sharciga waxa hadda lagu sameynayo oo dhibaatada lagu gaarsiiyo waa sharci dar xagga waxbarashada waxaan isleeyahay heer degmo iyo heer gobol iyo heer maarta caasimadeed way helayaan xuquuqdooda dadka ku nool xagga shaqada iyo xagga waxbarashada iyo xagga caafimaadka maxaa yeelay taladooda nin dad ka shaqeeya ayaa u jooga maarta goobahaas beesha caalamka waxaan ka codsanaynaa inay aad iyo aad dadka naafada Soomaaliyeed oo wax xuquuq aan haysan haba yaraatee inay xusaan xuquuqaadka dhinac kasta aan ka leenahay in laga hilgeliyo haday walaalaha beesha caalamka gacan weyn siiyaan anaka meesha maanta taagana ma taagnaanayno meel ka fiican taagnaanayna bal idinku hadii aad tihiin waliin naafada qaranka in arrimihiin aad ka hadashaan Muqdisho kaliya aad ku egtihiin maamul goboleedyada ma kala hadasheen in madasha bari furmayso marka laga reebo inaad ku heshaan qoondadiina ma kala hadasheen maamul goboleedyada ma kala shirtay arrintaas oo wakiilo gobolada ku leeyihiin maamul goboleedyada wakiilo waa ku leenahay golaha naafada qaranka la yiraahdo gobol kasta waa joognaa waliba si gaar ah waxaan wala hadalnay madaxweynayaasha maamul goboleedyada sida madaxweyne Shariif Xasan madaxweynaha Galmudug Cabdikariin fariinteena kulli madaxweynaha ilaa madaxweynaha Puntland waa gaarsiinay fariinteena oo ah waxa aan hadda halkan ku soo bandhignay oo aan dalbanayno inaan u baahanahay taasina kuma kala qaybsanin inay hesho naafada Soomaaliyeed xaquuqdooda meel ay joogtaba inay hesho haddaan halkan uga hadalno iyo haddii aan Boosaaso ka hadalno iyo haddii aan ka hadalno mataqaanaa Hiiraan waa isku hal qofka naafada Soomaaliyeed
annagu hebel waxa laga dhigana maahan ujeedkeenu waa in la helaa xuquuq dastuuriya oo ay leeyihiin dadka naafada ah waxaad codsanaysaan oo qodobadiina ka midka ah in dastuurka lagu caddeeyo si sharci ah xuquuqda aad leedihiin dabcan waxaa jirta wasaaradda dastuurka ma kala xiriirtaan arrintaas inta aadan media usoo gudbina ka hor oo xiriir ma la samaysaan si aad cabashadiina ugu gudbisaan waa mahadsantihiin wasaaradda dastuurka iyo guddiga madaxa bannaan ee dastuurka labadaba waa kala hadalnay waana la sheergaraynay shirarkii la qabtay ee ugu dambeeyey shirarka waa tashiga dastuurka ku salaysnaana waa ka qayb galnay waana ugu martigeliyeen marka dastuurka ayaa laba qayb ah waa dastuurkan waa ku meel gaar maadaama uu mid ku meel gaar waa og tahay in hadda la wado mid maamul goboleedyada iyo bulshada dhan laga talagelinayay oo ujeedkiisu yahay in la soo aruuriyo oo uu soo baxa mid kale oo ka duwan kii hore wixiina dhaafay waana dhaafeen laakiin mid hadda soo bixi doona waa gelinay ra'yiganaga waana kala jirnay guddiga madaxa bannaan iyo guddiga baarlamaanka u qaabilsan maaragtay arrimaha dastuurka iyo wasaaraddaba